السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا iyo walaalaha ku xiran channelka graphics waad ku mahadsantihiin inaad ka soo jawaabtaan doorashadii aan idin soo bandhignay oo ahayd inaad kala doorataan labada software oo midna mobilka loo isticmaalo midna computerka loo isticmaalo Adobe Premiere Pro iyo KineMaster. run ahaantii wax isu dhow ma ahan sababtoo ah midna waa software weyn oo caalami ah oo Oscar badan haysta oo ah software lagu edit gareeyo filmaanta adduunka ugu qaalisan oo aad ku soo saari karto runtii waxyaalo aad cajiib u ah si professional ah aad wax ugu baran karto. waayo shirkadda Adobe waxay leedahay software badan oo cajiib ah oo ugu haysta adduunka qaabka film loo sameeyo ama video loo qurxiyo. marka doorashadiina aad ba ugu mahadsantihiin. waxaan bilaabaynaa koorsadii hadda waxaan joognaa shaashada Adobe Premiere Pro. markaad soo kacsato oo aad soo furto shaashada kore sidaas ayuu ku soo baxaya muuqaalo badan oo aan ka sameeyay qaabka gudihiisa loo soo galana way ku jiraan kanaalka laga faa'iideysto. marka waxaan rabnaa inaan sameeyno hadda qaybta ugu horeysa laba step aan sameyn karnaa markaan furanayno shaashadan kore. halkan madow halkan inay waxa la rabaa madow noqoto la rabaa oo ay martay afar gees noqoto saas shape afar gees ay noqoto rectangle ah. marka halkan haddaan furno waxaan ka sameyn karnaa sequences wax la yiraahdo. sequences waxaan soo dooranaynaa bismillah ka ugu koreeyo soo dooranaynaa kaas ilkaas aan sii furaynaa kadibna waxaan dooranaynaa third frame baan dooranaynaa third frame basic ma dooranaynaa kadibna waxaan halkan ku qoraynaa darsiga koowaad darsi ayaan ku qoraynaa kadibna waxaan leenahay okay. sida waxa inuu ku furan shaashadii ama magaranaysa program monitorkii muuqaalka aan martay halkan timeline-ka aan keenayno aan magaranaysa aan ka arki lahayn. laba steps ayaa halkan ku jira. laba steps tuulasha awal bayna hor u soo baranay oo muuqaalo hore aynu soo sameynay ayaynu ku daawanay qaabka halkan loola macaamilayo iyo tuulasha halkan ku jira waxay yihiin iyo intuu panelka kooban yahay muuqaalo hore aynu sameynay ay ku jiraan. fadlan haddii aad horey noola socon oo aad bilow tahay jecesha inaad barato software-kan caalamiga ah ee Adobe Premiere channelka dib ugu noqo Adobe Premiere casharadiisa ku jira ilaa awliga aad soo qaado insha Allah ka bacdi markaasna soo gaar. halkan marka waa media browser way halkan sida u jeedid halkan marka laba step aan ku soo gashan karno inaan double click siino oo halkan aan furno iyo inaan magaranaysa projectiga aan soo diyaarsanay aan halkan keeno. asalba horta marka wax sameynayso waxa u baahan tahay inaad wax diyaarsatid sida muuqaaladii iyo malaafaadkii aad adeegsanaysay codadkii magaranaysa sawiradii wixii aad adeegsanayso wax ku sameyn lahayd horta waa inaad soo diyaarsataa. haddaan waxba ku diyaarsanayn waxa la mid tahay qof magaranaysa qalin sita laakiin buug aan wadan oo waxbarasho u socdaata. buug ma wadid qalin bas wadata macallinkii maanta mooji. marka sidoo darteed waxa u baahan tahay inaad wixii soo diyaarsato wax diyaarsan aad magaranaysa ku bilowdo marka shaqadii. marka ana waxa soo diyaarsanay magaranaysa projectiga ku shaqeyn lahayn. halkan waxa noo yaala waa videoga gudihiisa magaranaysa folderkan waxa ku jira videoyo laba ku jira labada mid magac waliba arki doontaa insha Allah. halkan laba saacadood ku jira halkan hal cod baa ku jira halkaana magaranaysa dhowr sawir baa ku jira. marka intaasan soo wada dooranayna hal mar kadibna waxaan soo dhignaa drag and drop halkan soo dhigaynaa maanta dad isla wadana u fiirso. marka halkan sida magacyada ugu qoran yihiin oo music image smart watch video ay ugu qoran yihiin waa sida ay computerka ugu jireen ayuu isna sidoo ay u qaabilayaa fiiri sida ayaa magacyada ugu qoran yahay folderkii sida ay ugu samaysan yihiin. waxaa jira casharo waaweyn oo la yiraahdo sida loo organize loo sameeyo oo la isugu habeeyo. tusaale haddana halka linkan kugu yar yahay ardayna linka weynaysto inta keensatay wixii gudaha u gashid waxaa taabanay calaamada delta adoo jooga media browser adoo jooga ayaad waxa taabanaysaa calaamada delta computerka taabanay saas lagu weynaysiin gudihiisa furay waxa ku jira arkaysa gudihiisa dhan waa arkay insha Allah taala waa ka fahmi doontaa. hays oran barnaamijkan uu adag yahay barnaamijka ma adka aad ayuu u fududeeyay runtii. marka rabtay ka soo noqotay marka oo ilaa faylash kala dhan iyo shaashadii ka qarsoontay marka rabtay ka soo noqotay isla deltadii taabanaysaa waxba iskama aabiin isla deltadii uma taabanaysaa. okay marka weelan muuqaalada shaqadii ku bilowno first waxaan qaadaynaa halkan furaynaa fiidiyaashan xulnaynaa kan koowaad ayaa waxaan leenahay waan ka dhaafay halkan kugu soo noqonayaa fiidiyada V1 iyo V2 magacyo kala bixiyay
magacyo ayaan u kala bixiyay V2 video 1 iyo video 2 marka video 1 aan qaadanaya sida balantu ahayd video baan qaadanaya waxa la yiraahdaa halkan ma lagu bedela odayo oo resolution-ka inaga macnaha frame-ka aan dooranay iyo frame-ka video-ga way kala duwan yihiin sida arkaysa hadda waxaan dooranay 30 frame per second ayaan dooranay sida ku aragtay halkan sequence-ka soo sameynay xagan hoose sida ku aragtid 30 soo dooranay laakiin video waa 50 frame farq ayaa u dhaxeeya 20 frame baa u dhaxaysa marka asaga wuxuu ku dhaam ku bedelaa oo halkan kugu bedelaa macna frame-ka video-ga uu leeyahay kaas automatic halkan u siide video-ga hadda fiirsid shaashadu leeyahay laakiin kan dambe oo tuuga waxa ku dhici doona u fiirso midka tuuga ay uu ka yaraana geesaan dhan ama banaanay aan soo qaado marka isna tuugaaye soo qaadaaga adrab leh halkan soo dhig haye maxaa dhacay meeshan fiirsa marka dulkeena fiir labada video aan soo linkan xoga dheereeyo labada video fiirsa kan calaamad jaalla uu leeyahay kana guduud u yahay guduud marka hadda aragtid guduud dhan waa khatar guduud dhan wuxuu sheegay waa wax khatar oo waxa ku dhaceen ama qariban uu sheegay marka farqiga u dhaxeeya kan caadi u socdo samaartid hatta kan culays ku soo galay marka waa cilada jirta in la biciyo waa marka sayska waa kan aan dulgeeyay marka waxa dhacay fiir geesaha dhan madow ever labada video way isleeyihiin fiir inta haddaan ku noqdo labada video 1 waa frame-kiisu waa 50 video 2na waa 50 isna marka labadoo isku frame sabab maxay ku dhacday sababta waa kaaga jawaabaya insha Allah laakiin video-gan hadda meesha la ekaysiinayna video-gan ayaan la ekaysiinayna meesha si video-gan kalik siinayna highlight way ugu cad yahay soo jeedin kan kale uma eka marka waxaad tagaysaa halkan marka fiiri halkan marka kalik siisato xagga u fiirso waxa soo baxay fiirsiya aan noqdo geeskan u fiirso adiga halkan waxa meeshana furmayso waxa yaalo casho oo maartay xisaab iyo xabaab soo baxaya haye waxa isku afray effect control marka inuu halka joogno waxaan sameeynaa meeshan skill ku qoranta boqolka ayaan dhanka midigta u jiideynaa intaan maartay mouse-ka falaarta inagoo tan bidixayna left click oo taqaanaha adnagoo tan bidixayna aan waxa u jiideynaa dhanka midig u jiideynaa dhanka midig ujiid wala akaysin ayar geesana madaxooga inuu ka jirto video soo dhaweeyo geesana xoogaa ka jirta inta meesha oo shaashada lagu soo weynaysto waaye oo laga yareeyo inta oo shaashada laga wareeyo laga weynaysto marka xoogaa yar geesana ka jira xayiraan ku dara xayir 200 camal qaatay ka war ama halka inta saas calaamad waxa la 200 ayaan ka dhigaa interna wada bas ku leeg marka kan see waxa leeyahay marka waxa leeyahay kan ila guduud biyo culays baa ku jira adan break down jiitama gig u dhaha habta gig u dhaha ujeeda habta gig u dhaha soo marka si aan uga bixin culayskaas meeshan aan kor ugu jiido ama inta ku calaamad delta aan ku taabto waa ku weynaysi fiiriya inta fiiri calaamadaas naga joogna oo meesha labadu iska galaan joogna fiiriya meesha ku egtahay aan computer-ka waxaan taabanayna ay markaan taabano oo jiidayna tan waxaan geynaynaa meesha ugu dambeysa oo aan taabanayna marka intan iyo inta isma eg marka intan calaamada ku jirta highlight saaran kadib enter aan taabanayna computer-ka haye process render bal sameeyaa wal fududeynaya barnaamijkan magaalada video-gan dhan culays ku jira waa laga saaraya fudeed laga dhigayaa muhiimku waxa weeye fahanka computerada oo ka yar yahay memory-goodu 10 GB uu ka yar yahay marka barnaamijyadan lagu sameynayo waa runtii barnaamijkan aad u baaxad weyn marka aad soo dejinayso waa 2 GB aad u culus yahay marka computerradan oo magaranaysa yar yar oo RAM-koodu 10 GB ka yar yahay waliba daatooyin kale kugu jiraan culays laakiin computerrada ka yar ka weyn baa leeyahay 10 GB ilaa 10 GB ah okay delta aan taabto marka aan soo ceshto okay halkan highlight-ka iyo halkan highlight ma ahan xagan highlight waaye farqiga u dhaxeeya marka farqiga u dhaxeeya aan aragno culays jira ma
culayska hadda u baxaa markaan halkan tagto halkan linkan cilada meeshan cilada waxaan dhahaa right click kadibna waxaan dhahaa clear in and out. hadda maxaan soo taabanay computerka markaan inta sameynay I or O waxay u dhigmaan in and out. marka clear dheh waa laga qaaday. hay marka video aan fiirino marka u ordo fiirsaya video day oo tamcaanka gig laha si raaxa leh u socdo hadda. intaas marka waxaan sameynay videogii inaan dheereeyaan maraba koorsaday videoga waxaan sameynay intaas inaan labadii barnaamij is ogoleysiino labadii video is ogoleysiino si raaxa leh computerku uusan dhibayn aan uga shaqeysano. waxaan noo haray saacada xag yaal iyo codadka iyo waxaas iyo shibsi aan ku darino qoraal aan ku dari doono ayaan hadhay. intaas hadaa barato waaba okay muuqaal soo saaraad noqonaysaa waxbaad soo saari karaysaa. dadka Soomaalida oo YouTube-da isticmaalo oo muuqaalada tayadoodu liidata soo geliya meelaha waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan